بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الثامن درس هو درس سديدات مادة النحو الصرف قيبتي قبل نحوها يكسر وياهي وحالي هذا التمييز تمييز وحلا سرعة يوي haddaan qaacidadiisa gallo tamyiizku sidoo kale wuxuu ka mid yahay asmaada mansuubaadka ayuu tamyiizku ka mid yahay mansuubaat al-asmaa la yiraahdo wala at-tamyiizu huwa ismun yudhkaru li bayaan al-murad min ismin saabiqin mubham marka la tacriifinayo waxa la yiraahdaa waa ism la sheego waxa loo sheegayaa li bayaan al-murad min ismin saabiqin waxa la doonayaa in la cadeeyo ujeedada laga leeyahay ism hore مبهم أو قرصون اسم كاس مبهم كاهو يصلح أصوبة لأن تراد به أشياء كثيرة إن لو رجعوا أشياء فربضا كاو عليها تمييز بديا صراحة الدائرة هذا مثلا عندي 20 معناه الله وحاه يستعى لباطن مركز سيادة عندي 20 اسم كان 20 ليانا ومميز wuxuu noqonayaa mubham buu noqonayaa mubham waa ism mubhama hadaa yaraa 20 baan haystaa oo iska aamuso 20 kaas waxay tahay lama yaqaano laakiin marka yaraa مثلا riyaalan oo kale hadaa ku daro oo yaraa indi 20 riyaal 20 riyaal baa haystaa marka waxa cadaanaya 20 kaas waxay yihiin markaan baa la ogaaday laakiin marka hore oo 20 kali ahayd ma kitaaba ma looba ma geelba ma ariba ma wax kala mid laba aqoon اسمكاس marka mubhamka noocaas oo kala oo ismka sida u cadeeya ayaa waxa la yiraahdaa tamyiz ka bacdi tamyizka ismkan tamyizka hadaan waa tamyiz waa kan way ismkaas tamyiz leeyahay hada saan misaalinay ismka ka horeeya oo kan oo kala waxa la yiraahdaa mumayyiz waxa la yiraahdaa mumayyiz waa kii la soo cayeeyo waa mumayyiz waa ismkaas mumayyiz baa la yiraahdaa تمييز كمركا يدو لغا ايغايو اسمكا مميزكا بو لبا قيبود نقدا مميز وعلى المميز اسمان لبا قيبود وي ملفوظ يا ملحوظ بالكليها لبا قيبود اما وحاليا ملفوظكا ذات باليها ملحوظكا وحاليا نسبه وتمييز ودي كرتا تمييز كو قيبس لبا قيبود تمييز ملفوظ يا تمييز ملحوظ تمييز كو قيبس لبا قيبود تمييز الذات يا تمييز النسبه لبا قيبود ودي كرتا هدان ملفوظكا كو هرمرو وهو ما يلفظ به من الجملة ومتك لغو دواقي جملة معناها مميز كلغو دواقي جملة دحيدا ايا waxa la yaab malfuud sida hadda kan aan miisaalno kale wuxuu noqonayaa nooca malfuudka uu noqonayaa sababta lafdi ahaan baa u sheegnay ma qarsoona lafdi ahaan ayaa u sheegay waaya malfuud وهو ما يلفظ به في الجملة ومتك لغو dhawaaqo jumlada dhexdeeda mumayizka lagu dhawaaqo jumlada dhexdeeda ayaa waxa la yaab mumayiz malfuud أفر قيبات بو نقضا تمييز كان ملفوظ كأي أما تمييز الذات كاليادو ووزني وح ميزان كتوسيا كيل وح لباقة يباق وح كتوسيا مساحة عبري درجة وح كتوسيا عدد يترو أفر تاسو قيب سما وعليه وهو ما يلفظ به في الجملة ووح لقود واقع جملة الأهلية كأسماء الوزن سيدا أسماء لكتوست ميزانك والكيل باقة والمساحة عبرك والعدد الترى ملحوظ باليها أما النسبة ليها وهو ما يفهم من الجملة جملة لا فهم كلام ثم وعلى طاب زيد خلقا بتمييز نقايسة لكن اسم مميز أو جار ما ذكر زيد با مميز ما أوران كره طابا يا مميز ما أوران كره مميز هو كل حاجة صريحة جملة لازم كل حاجة تمييز النوع عاصو كلام وعلى هذا تمييز ملحوظ باليها وهو ما يفهم من الجملة ووحى لغا فهمه جملة دحديدا من غير أن يذكر فيها أيضا عن الشيء وايد هذا هو ما أنه الأمثلة مثال أفرط هراء وأفرط قيبات ملفوظ كوي وزني كيل ذراع عبر يوم عدد هذا كور مرة متك أوري اشتريت وحان سوئي بسدي رضل بلحا أو تمره بلح ونوع ومن أجود أنواع التمر نوعين تمرتك هو أول بدل ما كملت بلح وهي مركا هذا إسكان مصر مركا إذا اشتريت رضلا
rodol baan soo iibsaday oon aamuso balaxna aan sheegin lama garanayo wuxuu yahay wuxuu noqonayaa mubham wey mubham buu noqonayaa marka balaxan hadda waa isimka tamyiizkii weeye ridlanna waa isimkii mubhamka ahaa oo mumayiska ahaa wey noociisuna wuxuu noqonayaa wasni waa wax la miisaamo wey wax la miisaamo number ku xiga loo number 2 qallat al-ard dhulkii baa soo saaray irdaban qamhan hal irdab oo qamxi ah irdab waa wax lagu beego oo qamxan qamadi ah suma irdabigaas ayay soo saartay oo qamxan qamadi ah marka qamxan wuxuu noqonayaa tamyiz irdabanna wuxuu noqonayaa mumayiskii oo haddana noociisu yahay kayl u yahay beer ku tusaya numberka 3aad waxa la baacani taajiru ganacsadihii baa iga gaday diraacan dhudhun xariiran oo xariira uu iga gaday xariir waa tamyiz diraacanna waxa weeye mumayiskii weeye noociisuna wuxuu noqonayaa almisaaxa wey numberka 4aad waxa weeye fi lxaqli beerta waxaa ku dhex jira 20 baqaratan 20 loo awe baqaratan waa tamyiizkii 20na waa isimkii mumayiska ahaa noociisu waa cadad wey wuxuu ku tusayaa cadad buu ku tusaya waa mumayiska afarta miisaal dambe waxaan ku soo qaadanaynaa tamyiizka malxuudka ah oo mumayiska aan la haynin wey jumlada ku dhex qarsoon yahay number 5 waxaa tiri taabal makaanu booskii baa wanaagsanaaday hawaan xagga hawada ayuu ka wanaagsan hawaan waa tamyiizkii laakiin mumayiskii ma hayno jumlada taabal makaanu ayuu ku dhex qarsoon yahay numberka 6aad faadal qalbu qalbigii baa shumay suruuran farxad suruuran waa tamyiizkii laakiin mumayiskii jumlada faadal qalbu ayuu ku dhex jiraa oo gaar looma hayo malxuud baa la yidhaha number 7 alcinabu min aladi anwaaci alfaakihati طacman oo hadda qaybtaan qayb kaloo noto tamyiizka liya nisba ama tamyiiz malxuud afcalu tafdiilka iyo tacajubka wixii ku tusaya hadda artid mar walba waa wuxuu noqonayaa tamyiizka loo yaqaan malxuudka wey wixii alcinabu cinabka ayaa wuxuu yahay min aladi anwaaci alfaakihati noocyada fawaakihda kuwa ugu macaan badan dacman xagga dhadhanka tamyiizka marka waxa weeye dacman nooca tamyiizkuna waa malxuud wey oo mumayiskii ma hayno wey numberka 8aad alqaahiratu magaalada qaahiro ayaa akharu ka badan min alaskandariyati magaalada iskandariya ka badan tahay sukaanan degaanka sukaanan baa tamyiizkii ah ama mumayisku waa malxuud wey oo lama muujin wey haddaan u nimaadna sharaxa waxaa la kow idaa qulta haddaad tidhaahdo ishtaraytu ridlan rodol baan soo iibsaday lam yafham isaamicu qofka dhagaystahaya ma fahmayo maa turiidu biridli rodolka waxaa ula jeedo fahuwa laa yadri ma garanayo abalaxan am shay-an aakhara ma timirta hadda aan sheegnayba mise waa shay kale lianna ridla kelmadda rodol la yihahdo ismu mubham waa magac qarsoon weeye yasluxu u suuban lian turaada bihi macaani kaiira in loola jeedo macaani fara badan walaakinaka idaa qulta haddaad dhahdo balaxan zaala alibhaamu ibhaamkii iyo qarsoonaantii waa zuushay wa fahima asaamicu qofka dhagaystahana wuxuu fahmay muraadaka ujeeddadaada tamaama alfahmi faham dhammaystiran liannaka mayasta lahu ridla rodolkii waad u soocday wa bayanta lahu almaqsuuda minhu ujeeddadii laga lahaana waa u caddaysay walidaalika yusamaa lafdu balaxan lafdiga balaxan waxaa lagu magacaabaa tamyiiz baa lagu magacaabaa kamaa yusama alismu lmubham sida loogu magacaabo isimka qarsoon wahuwa ridlan mumayisan baa lagu magacaabaa waidaa baxadnaa can almumayisi fi اlamhilati اlmutaqadima haddaan baarbaaro mumayiska miaalada aan soo dhaafnay wajadnaahu fi اlarbacati اlأuulى madkuuran fi lafdi waxaan helaynaa afarta hore lafdi ahaan in loo sheegay fahuwa fi اlmithaal اlأwal ridlan mithaalka kooda waa ridli wahuwa min asmaaءi اlwasni rodolkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha miisaanka tusiya wa fi اlmithaal الثaani irdaban wahuwa min asmaaءi اlkayl waxyaabaha beega loo isticmaalo ka mid yahay wa fi اlmithaal الثaalث diraacan wahuwa min asmaaءi اlmisaaxa cabirka waxa loo isticmaalo ka mid yahay wa fi الraabici 20 wahuwa min asmaaءi اlcadad kuwa tirooyinka ku tusiya ayuu ka mid yahay ama fi اlamhilati اlakhiira miaalada u dambeeya afartaa fainana laa najidu lilmumayisi dikran ma helayno mumayiskii sheegitaan fii kulli mihaalin minha mid kastoo ka mid ah walaakina saamica yalxadhu waa milicsan karaa wayafhamhu wuuna fahmi karaa xiina yasmacu اljumala markuu jumlooyinka maqlayo faidaa samica hadduu maqlo jumlatu daaba almakaanu maalan jumlada daaba almakaan hadduu fahmo laxida wuxuu fahmayaa ana aladii daaba waxaa wanaagsanaaday huwa shayun waa shay wey min alashyaai almansuubati lilmakaan ashyaada makaanka loo tiiriyey ka mid ah
ولكنه لا يدري ما قرنيه ما هو ذلك الشيء شيء قاسم حويها أهو ماءه مبيسا أم تربطه مسواعيدي ما قرنيه فإذا ذكرت له التمييز هذا تمييز كأشيكته تعين المراد وجددي والله قرتي وعينودي فالمميز هنا ملحوظ مميز وحو نقول ملحوظ ومفهوم من الجملة جملة أيانا لقى فهمها حكم التمييز تمييز كحكم كيس كو حكم التمييز الوزني والكيل والمساحة وعفر قيبوضها وإسراع سناء وعفر إصلاحها وحليا وزنية يا كيلك يا مساحة يا عددك وإصلاحها تمييز ملفوظ بإصلاحها لكن هذا واكل بحال markii iraabta la gaaray oo saddexdan gaar bay isku raacday cadadku la gaar buu baxay القاعده hadaa u nimaadno waxa la yajuuz waxa ku banaan fi tamyiz الوزن تمييز kale ya tamyiz الوزن waxa ku banaan والكيل iyo keylka waxa ku banaan an yunsaba illa nasbiyo ayaa ku banaan wa an yujarrab bil idafati in lagu hoos dhigo idaafana waa ku banaan tahay wa an yujarrab min in lagu hoos dhigo ku banaan tahay tamyiizka la yiraahdo wasniga iyo keylka iyo masaaxada xagga iraarta marka laga hadlayo saddex xaalad ugu banaan ina iska nasbiso sababtoo tamyiizku asalkiisaba waa mansuub waxa kale oo ku banaan an yujarrab bil idafati idaafayna ku hoos dhigto oo yujarrab min ama min ina ku hoos dhigto waayo amthilada u nimaado marka sagaal misaal balka noogu qoran sagaalka saddexda hore waxay ku tusayaan wasniga صدح كل تكيلك صدح كل ترى مساحة وحتى اشتريت وعن سوي بصدي رضلا رضل لبنا أو عناوي مكان لبنا وتميزكي رضلنا ومميزكي لبنا ولا كرجة ما أنت تميز ولا كرجة أما وحارنكتا اشتريت وعن سوي بصدي رضلا لبنا تموين تكاد رضلك تموين تكاد وعلى رضلا لبنا رضل عنابة صوقتي مكان وحنا قنيا لبنكي أو تميزه مجرور بالإضافة النقطية أما وحا أورانكتا اشتريت رضلا من لبن صدح على حالك وقبنان وحالا أوقدت وحان هوريي قندار فحما أو دحولوي وبقول معنا مثقالوي قندار أما وحالا أوقدت وحان هوريي قندار فحم هل قندار أو دحوله أو قندارا من فحم أما هل قندار من فحم صدح حالك وقبنان وحالا عندي سمك أصدحالوي عندي مثقال ذهبا هل مثقال أو ذهبا هيسا مثقال هو دينار أما هدي جرام لآده وأفر ببيع لبشا أو جراموي وايا أما وحا أورانكتا عندي مثقال ذهب وحا هيسا هل مثقال أو ذهبا أما وحا أورانكتا عندي مثقال من ذهب صدح العربة بنانت نمبر كأفراد أكل الحصان وحا قلنا قيبت اليادو كيلك أو بيقا فرس كيبا عني حفنة عن طوبة شعيرا وقعنده بوحدة أو هيد أول أما وحا كرتا أكل الحصان حفنة شعير إضافوي أما وحا كرتا حفنة من شعير صدح وحراك وبنان شربت وحان عبي كوبا كوب ماء أبيئة أما وحا كرتا شربت وحان عبي كوبا ماء أو كوبا من ماء صدح وحراك وبنان اشتريت وحان إيبسدي قدحا ويل وحلو بيغوي سمسما أو سمسمة أو مثلا واحد قدحا سمسم أما قدحا من سمسم صدح حالك وبنان نمبر كتطوات بعت وحان إيبيي ذراعا ردن حريرا أو حريرة أما وحارنت ذراع حرير هل ردن أو حريرة أو ذراعا من حرير صدح حالك وبنان لا أملك مليه شبرا تاكو أرضا أو دلأ أو شبر أرض أما تاكا دلأ أو شبرا من أرض صدح وبنان زرعت وعن بيري فدانا هكتر او ارزن بريسة امو على فدانا ارزن امو على فدانا من ارزن هذا هو النماذج مكة شرحة وعلى يتأمل ايها الطالب في الامثلة المتقدمة ارض يارو بالآد وفي رسوم مثالنا عن صور عفني تجد وحي ليس من اسماء الوزن في الامثلة الثلاثة الاولى مثالنا صدح على هراء ومن اسماء الكيل في الامثلة الثلاثة الثانية بيقنا وحكي ليس صدح على بعض ومن أسماء المساحة في الأمثلة الثلاثة الأخيرة صدح الضمنة ومساحة عبر وتأمل التمييز في الأمثلة المتقدمة أيضا تمييز كفير تجد وحيريسة يأتي في كل منها على صور ثلاث صدح قابك إيمانية فهو يكون منصوبا مروح نقنيا منصوب أو مجرورا بالإضافة أما روح نقنيا من إضافة لغوص
أو مجرورا بمن مد لغو هوستيغا من أيو نقونيا هذا أول ما أن سؤالها مركا أو قيمته قدام بيسئة وعلى أجب عن الأسئلة الآتية سؤالها صوص على كجواب ينقسم التمييز إلى قسمين فما هما تمييز وحقوق قيب سواء لبا قيبود محي كليهن لبا قيبود لبا عرف التمييز تمييز محالي إلى هذا صدح اذكر اثنين من أنواع التمييز الملفوظ وحاشيكتها لبا نوع أو كمد تمييز كملفوظ كلبا كمد الشيك أفر ما هو حكم التمييز الوزن والكيس والمساحة في الإعراب محو نقونا تمييز كده وزنك كيلك مساحة حق إعرابته سؤال الشرات استخرج من العبارات التالية كسو صار عبارات كسو صعدة نوعي التمييز تمييز كلبيس النوع واذكر ألفاظ التمييز في كل منها وحانا شيء ألفاظ التمييز شربت كوبا لبنا باب المكان هواء الريف أنقى من المدن هواء انتهى الدرس يقولون لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته